Somaliland waxaa ka jira ururo badan kuwa dawliya iyo kuwa private ah ururadaas oo qabta hawlo kala duwan sida la dagaalanka qabyaaladda dib u soo noolaynta dhaqanka bandhig suugaaneedka bandhig qoraaleedka iyo qaar la mid ah balse waxaa jira urur ay dhamaantood ka midaysan yihiin waana ururka Soonyo oo la aasaasay 2003 bishii 6 ayaa ka shaqeeya horumarinta shaqo abuurka si dhalinta aqoon-yahanka ah oo hesha shaqooyin balse ururka Soonyo ayaa muddooyinkii iyo sanadihii u dambeeyay u muuqday mid gaabis ah isla mar ahaantaana lagu baraarugaa xilliga xil wareejinta lana dooranayo hoggaanka cusub ee hogaamin lahaa haddaba maanta dhalinta aqoon-yahanka ah ee ku nool gobolka Togdheer oo aanu kula kulanay kafeteeriyada iyagoo la daalaa dhacay shaqo la'aanta baasan ayaa waxay nooga xog warameen ururka Soonyo halkuu ku dambeeyay waxaana ka mid ah hadaladoodii ururkii dhalinyarada Somaliland ee Soonyo labadii sano ugu dambeeyay waxaad moodaa inuu ka jiro runtii fadhiid badan xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud aadan Silaanyo ururkii intii uu jirayba بريه هراء أورك هسوي شقين شري لكن بريه هذا نبي واحد مودا أورك لأنه شهر سمال لأنه صايو إن صد هذه سنة ودم بيجي أنت حكومة أحمد محمد سلام شرتي إن فردت فربضان وكم مقضي واحد مودا مشروعية دي أيضا يراد كوك عادتي إن هرجيسون سودا فويدي يوم قبل دي سمال لأن كلية أي كم عرفتي مركب حنلاقي إن مادام أوركان يهاي أوركي دلنيادر رير Somaliland أو دلتي إسكو حريصة دلنيادر رير Somaliland إن شغادي لوجو بهنا دلنيادر Somaliland إن كفريصة تضبط حملة البورد كيو قدومية وحن وجو باقي أنا وجو كعب سكورهان شغادي هذو هيسن دلنيادر رير Somaliland إن استغلال دودات كديبتان دلنيادر أنا وحنو شيء إن نكمل مكرنا أوركان دلنيادر رير Somaliland صايو waayo magacii kaliya ee dhalinyarada reer Somaliland ay Soonyo ay ku qorabta iyagoo waxba ku qabanay mashruucyada ugu waaweyn Hargeysa lagu bixiya gobolada Somaliland oo dhan ma siiyaan marka waxa leeyahay kolba daaracad iyo dhismo qurux badan inta dhalinyarada reer Somaliland kaga qabataan tiradan ururka dhalinyarada reer Somaliland Sooyano wax nooc intooba anaga ma anagu hadaan dhalinyarada reer Somaliland ee aqoonta leh wax bartay dalkana ka bartay waxaan ugu baaqaynaa inaan ururka dhalinyarada reer Somaliland Soonyo inaanu ka maarano xukuumadana waxaad moodaa bariyahan dambe shaqo dhimis wax la yiraahdo inay jirto shaqo dhimista waxa keenay ururka dhalinyarada reer Somaliland Soonyo wax u cuntama dalka maanta haba yaraatay ma jirto si degdeg ah wanaad istaqaaladu dhiibtaan annaguna waxaan idin sheegaynaa inaanu idin ka maaranay ka dhalinyar ahaan daladna aan ku dhawaaqi doono waxaan ognahay dalada dhalinyarada Somaliland Soonyo inay ku magacaaban tahay inay tahay dalada ay ku midaysan yihiin dhammaan dhalinyarada Somaliland saasay tahay waxay xafiis ku leedahay oo ku furantay xarun ku leedahay magaalada Hargeysa caasimadda waan ka warhaynaayo gobolada Firco iyo gobolada kale dhamaantood midna kuma laha xafiis waxaan isweydiinaynaa markaas goboladan kale miyaana dhalinyarada reer Somaliland joogin oo aan ku sugnayn maadaama aan ururkii ama daladii dhalinyarada ku midaysneed ayna xafiis iyo meel ka hawlgasho ku lahayn waxa kale isweydiin leeyaduna sidee hawlihii ay Soonyo haysay dhalinyarada Somaliland loo qaban kariyaa maadaama aan goob iyo xafiis toona ku lahayn goboladaas iyaga ururkan dalada dhalinyarada Somaliland Soonyo waxay ka turjumaysaa guud ahaan dhalinyarada rag iyo dumar yar iyo weyn tababarada iyo barnaamijyada mashaariicda soo baxda iyo aqoon isweydaarsiga waxay ka fulisay kaliya magaalada Hargeysa mushaarka qaadanaysan xalaalaysto service-kana ku magacaaban tihiin si wacan fuliya dhalinyarada Somaliland waxa leeyahay system-kana wax laga bedeli waayo waxay noqonaysaa in dalad kale oo dhalinyaradu ku midaysantay la sameeyo oo guud ahaanba laga guuro daladan aan shaqaynayna functional-ka ah Soonyo waxaanay sababtaan u leeyahay mimitaashana waxa weeyaan waxay ka shaqaysaa oo kaliya Hargeysa gobolka Muradjeex oo aanay waliba mashaariic fiican oo muuqato oo taabagal ah oo la taaban karo oo la arki karo aanay ka fulin balse maanta waxaanu leenahay ma oran karno waxa weeyaan waa ururka metelaya dhalinyarada Somaliland guud ahaan gobolada bari ilaa iyo gobolada galbeed waxaan oran karaa waxa weeyaan waa urur ku macaasha magaca dhalinyarada Somaliland iyagoo oo ku raadsanaya dana gaar ah haddii aynu eegno xagga mashaariicda ay fuliyaan xafiis baa looga dhisay magaalada Hargeysa balse iyagu wax dhaqdhaqaaq ah way fuliyaan ma jiro dawladdu waxay u sameysay budget gaar ah oo ay sanduuq baa loo sameeyay sanduuqa oo loogu shubayo budgetkooda waxay doontaa waxay hay'adaha maxalliga ay wadanka ka shaqeeya ka hawlgala lacag ay mashaariic beena ay kaga soo qaataan way mashaariic haday fulinayaan Somaliland Hargeysa oo kaliya ma caasimadda Hargeysa oo kaliya ma caasimadda Hargeysa waxaan oran karaa uma dhameystirnay shakhsiyaad gaar ah ayaa danka ah
oo dan kale oo adeegsada marka waxaan oran karaa su'aasha meesha imanaysa waxa weeye marka aynu ka hadlayno urur dhalinyarada Soomaaliland ku midaysan tahay oo magacooda huwan ma waxa aynu oran karaa waa mid shakhsiyaad gaar ah u afduuban oo shakhsiyaadka gaarka ah ay danahooda ku fishadaan mise waxaan oran karaa waa urur hadweyno dhalinyarada Soomaaliland ay u siman yihiin oo ay ku midaysan yihiin haddii aanu nahay dhalinyarada gobolada bari laga soo bilaabo gobolka Saaxil ilaa iyo gobolka Sanaag waxaan leenahay ururka Soonya haddii sidan ay wax u wadaan laga bedeli waayo waxaanu samaysanaynaa urur gaar ah oo lagu midaysan yahay dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku midaysan yihiin waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco